wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka Jubbaland ayaa maanta oo Talaadaha caasimadda ku meel gaarka ee Kismaayo ku qabatay aqoon kororsi ku saabsan dib u heshiisiinta kaas oo sare loogu qaadayo garaadka bulshada rayidka waxaana ka qayb galay wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka Jubbaland mudane Cumar Maxamed Cabdi, wasiirka kalluumaysiga Ibraahim Xasan iyo wasiir ku-xigeenka howlaha guud Yuusuf Cabdi. wasiirka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka Jubbaland mudane Cumar Maxamed Cabdi oo furay madasha ayaa warbaahinta u sheegay in marar badan oo sii horeysay ay kulamo kala duwan qabteen sababtuna ay tahay yagleelkii Jubbaland inuu asal u ahaa dib u heshiisiin oo welina ay gogoshii fidsan tahay siina socon doonto. samahan markii koowaad aan u qabanayno odayaasha dhaqanka ee bulshada dhamaantood marar badan oo soo qabanay sababta saas u yeelina waxa weeye waxaad ogtihiin Jubbaland markaan tusaalahan u soo qaato waxay ku dhisan tahay dib u heshiisiin 2012 kii gogashii la fidiyay dib u heshiineed ilaa hadda way fisan tahay waxa garan kartaa ilaa hadda inay dib u heshiintaas waliba socoto marka annagu waxaan go'aansanay marka ka wasaarad ahaan bulshadeena inaan tababarkaas qaabka loo xaliyo khilaafaadka odayaashina dhaqanka inaan barno ahmiyadda koowaad aan siinay waa taas dib u heshiinta oo dhammaanteena nabadaas iyo aan ku haysano horumarkaas. waxa uu sidoo kale wasiirku tilmaamay in dadaalkooda uusan ku ekeen gudaha Kismaayo oo kaliya balse ay gaarsiin doonaan deegaanada kale ee xorta ah si bulshadu isula jaanqaado. tababarada aan qabanayno inaan bulshada kaliya khilaaf u ka jiro reer Kismaayo kaliya ma ahan qorsheena higsiina waxa weeye oo hadda odayaasha aan u sii baranay bulshada waxaan rabnaa odayaasha naftirkooda inay ka qayb qaataan in odayaashu aan ka hayno aan tuulooyinka geeyno inay iyaga naftirkooda fahamsiin karaan qaabka loo xalliyo khilaafaadka u faa'iideyn karaan laakiin marka ay ku faa'iideysataan uma idinkuna u faa'iideyn karaysaa bulshada kale ama odayaasha kale. wasiirka kalluumaysiga Ibraahim Xasan iyo wasiir ku-xigeenka howlaha guud Yuusuf Cabdi ayaa labaduba bogaadiyay seminaarada ay wasaaraddu siinayso odayaasha dhaqanka iyo bulshada si kaalintooda turxaan bixinta khilaafaadka ay uga qayb qaataan. kulankan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wasuukan keenay meeshan muhiimadda iyo waxa uu dadka Soomaaliyeed u leeyahay kulankaana waa dadku way fahmi karaan wax kasta oo dhaca odayaasha dhaqanka baaxadin jiray dawladda ma gaari jiray intaas sharaftooda bahalkan ku gaaray haddana ma taaganahay odayaasha inay halka kaga aadan taariikh inay ka qabtaan marka federal haddaan ahno waxay ka mid tahay dib u heshiisiinta bulshada waa federal. gabagabadii wasiirka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka Jubbaland mudane Cumar Maxamed Cabdi ayaa ka qaybgalayaasha ku tala siiyay inay si fiican u qaataan cashirada si aqoonta ay helaan ay ugu gudbiyaan bulshada inteeda kale. waxaan rabaa in ku dardaarmayaa inaad ka faa'iideysataan tababaradaas ay bixin doonaan ragga qubrada ee la jooga qaarkood arfaasarada wasaaradda ay ka mid yihiin inaad ka faa'iideysataan aad baan u mahadsantihiin sida raftan loo dhageysateen. tababarkan oo socon doona 4 maalmood ee fooda inagu soo haysa ayaa waxa uu daba socday kuwa hore oo sidan oo kale ay agaasintay wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka Jubbaland. sida ay dad badan qabaan isu imaatinka noocan oo kale ah ayaa ah fursad qaali ah oo looga faa'iideysan karo isku keenida ummadda inta iskhilaafsan si xal waara loo helo. Abdullahi Hussein Kilas, telefishinka caalamiga Ariel, Kismaayo. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo eDahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.